أندلس لبي السجاشن كي لقى بلابه إلا بقول سداد يصدم كي هجرية ده waxay hoos imanaysaa al-khilaaf al-umawiyya markii khilaaf al-umawiyya ay dhacday ee dawladda al-Abbaasiyya ay meesha qabsatay wiil dhalinyaro umawiyiintii kamid ah ayaa dilkii ka baxsaday walaaladii la dilay isagii baxsaday wuxuu socdaba wuxuu gaadhay wadankaasi Abdurrahmaan al-Daakhil oo saqar Quraysh ninka loo bixiyay dawladdaasi isaga dib u asaastay isagoo qariib ah buu wadanka tagay waxba haysanin laakiin dawlad buu muddo yar kaga dhistay dabeetana dawlad aad u ballaaran ayuu dhisay dhowr iyo 30 sano baan filayaa 34 sanadood ayuu xukumayay waqtigiisii intii badnayd thawraad bay kaga dhacday 25 thawradood ayaa ku kacday 34 sanadood ee uu maamulayay أخيراً بقول يتضوات كم لها مركي مريسة يودن كاستقرار كيسي سقمي مدينة عن كي مدينة الزهراء الله يراد قرطبة كتالة تاريخ ده مدن كي وقع عن سنة دنيا هانشرة وقرح ضبطنا أي وقت قاعد سي مسجد قرطبة ومساجد كوين أبو بلابي إلى أي مركي دم مسجد قرطبة سيدي لو وينين يي كن إيا الله بقول أطير بمركي دم بلها مساجد كتير كيسو بلا ريسكيسو كن إيا الله بقول isagoo 1200 bale oo kiniisada ayuu haddana ka dhisay Qurtuba wali masaajidkii waa dhisay laakiin hadda waa kiniisad taariikhda si dheer ee wadankaasi leeyay waa taariikh maasi tiro badan leh ama meelo madmadow oo aad u fool xun oo tiro badan leh meelo aad u qurux badan na leh waa taariikh markaasi runtii daraasadeedu ay tahay taariikha ugu fiican in la daraaseeyo waa taariikh isbedbedelkeedu badan yahay asbaabta keentay isbedbedelkana markiiba aad isha ku dhufanayso aan wax badan oo u fiirfiirsi badan kaaga baahnayn marka aan soo koobo haddii aan taariikhdan maraaxil u qaybino marxaladda hore waa marxaladaasi dhismaha koowaad ee ninkaasi dhisay kadib inaanu dhalay baa ka uga dambeeyay kadib inan kale oo awowyaha uga dambeeyay qolada hore waa iska fiicnay laakiin waxaan jeclahay meesha u baahan inaynu si fiican u daraasayno inaan soo dul taago taariikhdani markay muddo socotay ayaa ninkii ugu dambeeyay waqtiga aan rabo waxaan rabaa ahdigii ملوك الطوائف يتلينيس عهدي ugu fitna badnaa inaynu tagno ee taariikhdaasi kamid ah waa ahdiga loo yaqaan ملوك الطوائف ama boqortooyooyinkii طائفaadka yaryar ee kala nooc ah ملوك الطوائف waxa ka horeeyay laba boqor oo aad u waaweyn waa Abdurrahmaan الناصر ama Abdurrahmaan الثالث taariikhda bani umayya saddex nin Abdurrahmaan la yiraahdo soo maray daakhilkii iyo Abdurrahmaan كي لبات أما الثاني يا عبد الرحمن الثالث إنه لو قلت المامو يسد هشام كي كوات كي لبات كي صدحات عبد الرحمن الثالث أو عبد الرحمن الناصر نك الله يقانه وحكومة يودن كاسي كنتن سنادات لبي لبات تنشري سوى أبو قبصدي وأنا مرر كي قرح بدنيد بودن كاسي جارسي ننكرتله والله كعبسله والدولة حوجان دستي وثوراتكي وحي كسو هرجيدو دhan ka takhalusay oo ballaadhiyay dawladda islaamka ee meesha dawlad aad u qurux badan leh buu ka tagay markaas Abdurrahmaan الناصر dawladdii quruxda badnayd ee uu ka tagay inankiisii baa dhaxlay loo oran jiray al-Hakam ibn Abdurrahmaan الناصر al-Hakam waxa nin caalima aqoon badan diin jecel alla ka cabsi badan dawlad degan helay isna dhanka cilmigu isaga faafayba waa maktabadii caalamka ugu waaweynaa ninkii samaystay 400 oo majalladood ba maktabadiisa ka koobnay isagu nin caalim oo faqiih abu ahaa muddo haystay laakiin qaltadii ugu weynayd buu galay bay yiraahdaan dawladii aad ka u ballaadnayd ee meesha ka talinaysay markuu ka geeriyoonayay inama waaweyn ma lahayn inan yaro u dhalay ayuu ka dhigay inuu leeyahay wilaayada isaga dabadi culimada ugu daaweynaysiisa 12 jir bay ka dhigaan taariikhda kuwa ugu yareeyana 7 jir adigu nin 10 jir meelahaasi ah
داديسو هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر نكي اللي ورشري هشام الثالث نكوي قانين أما المؤيد بالله لغة المامو هشام كامركي ماشي اللو ديبي هشام المير بوها ما دام المير اسكاها وصيبه سميا معد إلى لسه isaga islaanu hooya iyo laba nin oo kale taariikhdaasi mar rabo bitafsiil inaan uga warramo wuxuu mar rabaa mawaadicaan u dan leenahay inaan gaadho waxa isku qabsaday dawladdiiba nin la yiraahdo Muhammad ibn Abi Aamir waa nin qabiil Yaman asalkiisu ka soo jeedo الحاجب المنصور ninka la baxay weeyaan xaajibku taariikhda hore ورئيس الوزراء وكله نكا ومبورك ورك على كلا درة أي حاجب لورن شري حاجب كاسي تاريخ الإسلامي جهرة حاجب كاللقب لو ما سبعين شرين بقركم باللقب لهان شري المنصور بالله وحي إنه مقالله المقتدر بالله القادر بالله مقعيد أسي بقر هذا لهان شري لكن حاجب كي وزراء ما لهان شرين نكاني ما دام الدولة دي قاعد تسكجر دي لقب وسمايست المنصور لا يراهده سجى قبصدي الدولة دمانتد nimankii agtiisa soo marmarayayna uu ka takhalusay saddex nin baa la tilmaamay agtiisa ka dhawaa ma uu islaa waxbay ku qabsanayaan makiidooyin buu sameeyay bay yiraahdaan saddexdiiba uu ka takhalusay dawladii isaga qabsaday wiilkii yaraana wuxuu yiri inay yar baa tahay cibaadayso boqorrada looma soo galo halka ku jir meel buu ku xidhay bay yiraahdeen inuu iska joogi jiray xataa markuu soo baxayo dumarka lagu dari jiray koox dumar inta la raaciyo farda la saaro barnaskan ay qaataan hal yiraahdaa Moroccan iyo Maghribta idinka arka koofiyada yar ku samaysan khamiiska ma rag iyo dumar baa nooc ku samaysan bay qaataan nooca inta loo xidho baa la yiraahdaa barnaska la yiraahdo ayuu xataa lagama dhex garan jirin bay yiraahdaan dumarka uu la socdo iyo kooxdaasi galbinaysa cidima arki jirin waa iska cibaadaysan jiray meeshiisaas iska joogay ninkan la yiraahdo الحاجب المنصور baa dawladda haystay laakiin nin aad u cajab badan buu ahaa dawladdii wuu sugay waxyaaba cajabana waa laga tilmaamaa konton iyo laba dagaal buu galay intabana wuu guuleystay walaa qaarna konton iyo afar bay sheegayaan laakiin imaam dahabi konton iyo laba ka dhigaya konton iyo laba dagaal buu galay kontonka iyo labada qaswe uu galayba wuu soo guuleystay idan wuxuu ka dhigay wadankii Andalus loo oran jiray islaamiga ahaa wadan aan galba hungureynin agtiisa cidi soo marin aad u xoog badan imaam الذهبي wuxuu ku tilmaamayaa ninkaasi wa kana mawtuhu aakhir as-salah wa awwal al-fasad لأن أفعاله كانت حسنة في الحال فاسدة في المآل إمام الذهبي في سيره وحورنا ninka kan geeridiisu waxay ahayd buu yiri wanaaga wixii ugu dambeeyay acmaashiisuna geeridiisu wanaaga wixii ugu dambeeyay bay ahayd fasaadkana wixii ugu horeeyay afcaashiisuna buu yiri waxay ahayd xasana fil xaal marka waqtigan la joogo amaladii uu sameeyay amala aad u qurux badan laakiin cidib xumo dambe oo badan ka tagay waayo ninkani wuxuu sameeyay khilaafo aanu khaliifku talina qola kala taliso inaanu dhalay buu uga dhintay kiina halkii buu ka sii hayay 7 sanadood buu meelaha ku sii haystay laakiin nin saalixu isaguna ahaa dawladii waxba kama xumaanin mid uu dhalay oo kale ayaa sii dhaxlay ka dambe uu dhalay nin fiican ma ahayn wuxuu ahaa nin marka hore hooyadii Faranjiye tahay سلام فرنسية هذا شيء إسلامي ولي بهديات كبقرة ضيوسي يعني متكمل هذا شيء شنقل بالورن شري وحانوا هانين فساد بدن آدو فساد بدن نكاسات دولتي قبصدي أخيرا دقال الله يبر بربو إسناس كقدنتي وحصاب بحي إن لغو قعه دبتنا ماشي وحقبصدي نين عصب أو أمويين تكترسن وحالا يدي waayo shanjalkani wuxuu sameeyay khatarta kale waxay ahayd labadii hore waxay iyagu yiraahdeen anagu xaajibaan wilaayada umawiyiintii ba iskalo muayyad billahi ba qolka dambe ugu jiray